dadkan waa dadka ugu nasiibka badan adduunka. Allah assalaamu calaykum asxaabi, ku soo dhawaada muuqaalkeena YouTube. maanta iyo muuqaal cusub aan u gudagalnahay. Let's go. ciyaaryahankan wuxuu dheelay ciyaartan lagu dheelo barafka, balse si lama filaan ay kaamiro drone ah ka soo dhacday dhanka sare. nasiib wanaag waa uu badbaaday. Allah mid fudud ma aha tan, way adag tahay inaad kubad aad tuurtay ay wada tuurto ashaadan. Allah balse gabadhan wow. tartanka gawaarida waa mid aad u xiiso badan, balse ninkan nasiib ayuu u lahaa inuu ka badbaaday gaariga dambe. Allah bay gabadhan si inaba caadi ahayn ay goolka u dhalisay. dadkii goob joogayba ayaa bala ashqararayba. wow. dabcan ninkan wuxuu ka tagay gaarigiisa isagoona hore u sii qaatay furihiisii, teleefankiisii iyo boorsada lacagta, balse hal wax ayuu ilaaway. عجائب شيخو بل دراول كان عرق سيدا عجيب كله وضح بحي قواردان سيدي معقول كتاهينا. الله هداد عيار سيد عيارة سكيتنكا هوري وسيو كحيسو صاحبك وناكسن عيارتان بل عرق سيدو ويل كان سكا قبتي. الله ويل كان عياربا إنو عيارتك وبدا كوليغا وبكو سميو بيهد حدو ضبا. الله سيفي عن أيوب أبو ديبا إساقو تاغن شنبي قدونتا. عجائب شيخو كليا وحير ayaa u dhaxaysay inay wada dhacaan xirfad inaba aan caadi ahayn iyo shil oo ninkan wax yar u jaray ayuu qofkan ku badbaaday. dabcan nasiib ayuu lahaa maanta. qof kasta wuu og yahay haddii aad soo daawato muuqaalo kooban oo YouTube ka hay inaad is leedahay hawshan waad ka bixi kartaa. Allah waa sida ninkan haysata. cajaa'ib sheekhu ya Allah haddaysan duubi lahayn daroontu marna muusan ogaadeen khatartu ka badbaaday. Allah marna ma ogid marka loo baahaya inaad dhacdid oo waliba aad guulaysanayso. Allah ninkan wadadaas ayuu maray wuuna dhacay wuuna guulaystay. yaa ilaahi ninkan ciyaarta ice skaterka ama ciyaarta barafka lagu dul soconayo ayaaba ninkan wuxuu ka badbaadayba gabar halkaan lugta taagaysa. cajaa'ib sheekho ma sheegi karo in darawalkan ay ka tahay xirfad ama tababar ama nasiib ku saacidayba, balse waxa cajiib leh gawaaridan hoos maraya gaarigan xamuulka ah isku haleen badana. Allah bal ka wan adigoo ku dul soconaya dhismayaasha jooga sare uuna ku hay xarig, laakiin markii ugu dambeysay ayuuba xariga ka furmayba waana badbaadi. nasiibiga dheh. Allah qaalim rogitaankan wuxuu ku dhamaan lahaa mid aan wanaagsanayn. nasiib wanaag ma aysan dhicin, isagaaba aamini waayeba. Allah rigoole ayuu dhaliyay wiilkan, balse kaliya rigoole ma dhaline xitaa wuxuu kabtiisa ku dhaliyayba gool. ashiyaadan sul saaran waxaa laga rabaa inaad hal mid ka turtid iyagoona daadan, laakiin ninkan waaba sameeyayba. marka hore aygu nasiib ayuu lahaa inuu badbaadiyo mulkiilihiisii, halka mulkiiluhuna nasiib u yeeshay inuu badbaado. Allah dabcan way adag tahay inaad adigoo ilma gacanta ku haya inaad gacanta kalena aad kubad ku qabatid. cajaa'ib sheekho kulmaystahan waxa yar ayuu u jirsaday inuu qabto kulunkan, wuxuuba u maleeyaba inuu fakadayba, laakiinse shabaagta ayuu u galayba waa maraan lagu bixinayne. Allah gabadhan wariyahay waxay aad ugu dhawaatay diyaaradan degaysa. waan ogahay inay aad u faraxsan tahay, laakiin farxadaas waxa ma taraso hadaad madaxaaga weydid. bal ka waran daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta hadaad iliso goolka guusha. Allah jawi wuxuu noqday mid aan inaban caadi ahayn. dabcan qaabku iska soo taraarixay birtan korkeeda waa mid aan caadi ahayn, waana bandhigina qabad leh, laakiin nasiib ayuu ku lahaa inuusan ku dhicin birtan kale. waa maxay falcelinta ku haboon haddii aad furkii aad turtay uu ku soo laabto salameeshiisii? ninkan waaba aamini waayeba. qaabka kubaddan xoogga loo soo tuuray oo wiilkan cagaha dhexda ugu dhex qabtay waa mid cajiib ah oo saaxiibadiis ayaaba la yaabayba. wiilkan shiishkiisu waa mid aan inaban caadi ahayn, iyagii ayaaba aamini waayey. ka waran cajaa'ib sheekho yaa ilaahi ninkan ayaa fursaddii ugu dambaysa helay kahor inta uusan burburin darawalkan, wuuna ka faa'iidaystay. walle si fiican ayuu u boodayba. cajiib iga dheh. ciyaartan 40% waa xirfad, halka 60 soo harin ay tahay dhufid iyo rajo. bal ninkan arag laadintiisa ugu dambeysay sidoo la helay fikrad saxan laakiin goob khaldan. nasiib badana ninkan ayaa wiishkan saari alaabtan hal talaab ayuu banaan ku soo qaaday, wiishkii dhub ayuu yiriba. Allah isagiina inta taag ayaa ka soo haray. cajaa'ib sheekho inaad dhaaftay baraagtan waliba la dul saaray waxyaabaha lagu dul soconayo waxay kaaga baahan tahay xawaare, isku dheelitirnaan iyo firfircooniba oo aad kaga baxdid, haddii kale waxaad ku laabanaysaa meeshii aad ka timid. markaad fuushan tahay skatinka aadan haysan waqti kugu filan aad uga leexisid waxa kaaga hor yimaada, halkan isku day ayaad ku badbaadi kartaa. dabcan cunto kariyaal badan ayay cuntada ka daadataa iyagoo soo wada, balse cunto kariyahan waxay u suurto gashay inaysan ka daadan maraqi waday. nasiib iga dheh. yaa ilaahi bal ka waran isagoo xitaa isku dayin kulumeysi ayuu si fudud ku helay kuluun. Allah shimbirtii dudul badan mar bay afil baax gashaa. tuurashadan waa tusaalaha dhabtahay
guuldaro guul baa ka dambaysa cajaa'ib shiikhu dabcan albaabkan waa mid aad u culus haddaba gabadhan ayaa isku dayday inay furto albaabka balse si lama filaana ayuu ugu soo dhacayba nasiib ayay u lahayd inaysan taagnayn goobtii uu ku soo dhacay ciyaaryahankan wuxuu tuuranayaa koorno xitaa isagoo sii jeedaa allah waa cajiib runtii aan aragnahe yaa ilaahi waa koorno dabteedee abbabaay dabaaldegan waad u qalantaa walaalka raabarkan malaha nasiib ayuu lahaa inuu fushanaa masraxa markii ay dhacaysay dhacdadan cajiibka ahi koofiyad ayuu tuuray si cajiib leh ugu soo laabatayba sii tuur haddaad doontidba allah marka waddada goynaysid iska eeg dhinacyada waddada kadibna si taxadir ku jirto waddada u goo taasina waxay kor u qaadaysaa badqabkaaga markaadan ku ficilin ciyaaraha basketboolka iyo baseballka aan isku dirtid habka loo ciyaaro waa iska sidaan si cajiib leh ayuu la helay walaalka bal wiilkan ficilintisa eeg allah inay dhulka wax kaaga dhacaan wax dhib leh ma ahan laakiin markaad joogtid goob biyo leh arrintu way ka duwan tahay taas waxaan filayay ninkan inuu gadaal u celinayo doonta laakiin qaab cajiib leh ayuuba u soo qabsadayba koofiyadda allah dabcan faakikiska ayaa lagu yaqaanay in faasiska qaabkan loo tuuro balse sidaa inaad u tuurto oo aad la hesho oo mid yara adag bal eeg qaabka filcilintiisa isagaa iska yaabayba allah marka hore waxay u muuqatay in ninkan uu biyaha wax ka raadinayo weliba si taxadir uu ku jiro ma huba inuu yahay kulmaystaha ugu taxadirka badan adduunka oo wuxuu la soo baxayba kalluun cajaa'ib shiikhow barafkan daraadiis ayuu gaariga noqday mid sidaan u socda isagoona u dhowaadayba gawaaridan baaki ku jirta laakiin wixii gadaal ka dhacay wax cajiib ay ahaayeen allah qaabka cajiib kale u tuurayo iyo sida ay u geliso godka ayaa ah mid inabaan caadi ahaynba ninkan cuntadii ayuu mis ku tuuray laakiin way dhacday maya waa siduu u maleeyay leh nasiib wanaag ma aysan dhicin oo sheeg kale ayaba dul saarantayba waxay u muuqataa camal laba nin oo shiishka sala helay midba midka kale ee goobta dagaalka dhulka ayaba ku dhaceenbe cajaa'ib shiikh waxaa doontid ka dheh muuqaalada jaaska iyo tiktoka laakiin qaarkood ayaa ku soo dhammaada qaab qosol iyo madadaalo leh oo maskan baythonkahi albaabka maba soo garaacinba allah wuxuu laaday kubadda weliba si qurux badan balse kubaddii ay si cajiib u soo laabatayba allah ninkan ayaa si cajiib loo saaray kubadda meesha keliyana ma uu saarine wuuna ugu dejiyeyba iyadoo kor saaran cajaa'ib shiikhow dabcan in taayar la tuuro oo kubaddan aad ka dhex bixisid waxay kaaga baahan tahay tababar aad u sareeya si la mida ninkan wuu la helay laakiin inuu mar laad ku celiyo ayaa u baahnaan lahaa wuxuu wiilkan u sameeyey isaga iska daayay anaaba la yaabayba allah